الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سورة التكوير سورة لغو مقعبا التكوير waxaa laga soo qaatay magaca aayadda u horeysa ida shamsu kuwirat halkaasaa laga soo qaatay takwiirka waa suura makiya markay ku soo degtay aayadahoodu waa 29 aayadood waxay soo degtay bacda suuratu masad suuraddan sida suuradaha makiga oo kale waxay ka waramaysaa caqiidada oo asaaska diinta ah ida shamsu idaa waqtigii ashamsu qoraxda kuwirad la duuduubo nabiga sala allahu calayh wasalam xadiid tirmidi uu wariyey axmed iyo ibnu cumar radi allahu canhumaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man sarahu an yandura ilaa yowmi alqiyaamati ra'ya caynin falyaqra ida ashamsu kuwirat ida asamaau infadarat iyo ida asamaau inshaqat oo kama qaala sala allahu calayh wasalam qofkii ay farxa gelinayso inuu qiyaamaha indhaha saaro idaa waqtigii ashamsu qoraxda kuwirad la duuduubo takwiirku waa cimaamadda qofku markuu madaxa ku duubto bale ka wara alcimaamata duuduubka waxaa hadda loo jeedaa qoraxdaas sarreysa oo iftiinka xoogga badan leh ee koonka kala gaara shaqadeeda dhammaanaysa iftiinkii baa laga qaadahayaa waa la duuduubahayaa duuduubku see noqonayaa ma iftiinkiiba haddii lasoo yareeyo koonka laga soo aruuriye mugdi isku bedelaysaa mase ayada laftigeeda sida maradii loo duubahaya allahu aclam laakiin iftiinkiina waa laga qaadin ayadana waa la waayin bimacnaa kharaab addunya wey adduunku waa kharaabhayaa noloshu waa baaba-aysaa waa waqtigeedii waa dhammaaday qoraxdii aada weydeen oo iftiinka weyneyd waa la baabiin idaa waqtiga ashamsu qoraxda kuwirad la duuduubo iftiinkii laga qaado layska tuuraba waidaa waqtigii annujuumu xidigaha inkadarad ay daataan xidiguhu ama inkadarad bimacnaa kadir waa boorka mogta ay booroobaan oo iftiinka ay waayaan labada waa lagu fasiraa waa noo imaanaysaa fi suuradda ku xigta ida samaa infadarat waida alkawaakibu intaharat soo daadashada xidigihii oo ayakuna samada ku calaqnaa imisay la egyihin xidiguhu imisay u kala baxaan intee nuuc bay yihiin ilaah baa garanaya xidigahana way soo daadanhayaan iftiinkiina waa waayahayaan ibnu cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu inuu yidhi qoraxda ayaa la qaadin dayaxana waa la qaadin xidigahana waa la qaadin baddaa lagu tuurin dabayl baa ku dhufanaysa dab bay isku bedelhayaan waa holcayaan kulligood fa idaa bariqa albasaru wa khasafa alqamaru wa jumica ashamsu waalqamar qoraxdii waa la duuduubay waidaa waqtiga annujuumu xidigihiina inkadarad ay soo daataan oo ayakuna iftiinka ay beelaan qoraxdii eber bay noqotay dadkii soo jeeda oo adduunka dhooban baa qoraxdii la waayahaya waa la yaabin xidigihiina waa daadanhaya aad baa loo sii yaabin waidaa waqtigii aljibaalu buurihiina sawirad la socodsiiyo buurihiina waa la baabiinaya waa la fujinhayaa markaasay soconaya hawada duulduulhayaan fakaanat habaa'an munbathan busat iljibaalu basan fakaanat habaa'an munbathan eber bay noqonahaya watakuunu ljibaalu kalcihni ilmanfuush suuf laga bixiyey mirtii ji la mariyo oo duulduulhayoo kale ayaa noqonahaya marka qoraxdii la waah xidigihiina la baabiiyey oo iftiinka laga qaado la tuur buurihiina waa la burburiyey oo hawadayba bidbidahayaanba bini aadamkiina waa nool yahay adduunkuu joogaa maxaa naxdina marka waidaa waqtigii alcishaaru halaha 10 oo 10 bilood siday oo dilad la dayaco
aan danba laga lahaynba danba aan laga lahayn. xoolaha dadka dhaqda siiba carabta iyo soomaalida iyo hasha markay 10 bilood ay gaarto oo rimayga ah aad u qiimo badan tahay. koor gaar ah lagu xiraa, boodaan male, boodaan koor weyn oo kooraha caadiga aan ahayn oo markay socotaba la maqlay si loo ogaado meeshii aaday si aysan u diban amba halu cunin ayaa lagu xiraa. xataa marka la wada geela lama uleeyo, uluguma dhufta, iyada gacanta lagu dhuftaa sida loo dhowrayo. 13 bilood buu geelu qaadaa. ayaa reer magaalku inaysan aqoonta inta geel uu qaado 13 bilood 13 bilood ayuu geelu qaadaa. saas oo ma wallahi 10 ba 390 waa imisa 390 yaa saasaa loogu heesaa geela 390 beri oo siidkeed yahay baa la yidhaah. saas ama daliilku marka waa heeskaas mana 13kaas bay qaadaa saan rajeynayay. inkastoo hadda aan geelay ahayn laakiin waa ka warqabaa. mar geeli 10 bilood wax yar u dhiman soo ma 10 bay sidaa. hashii 10ka sideedan lagaba laba. dadkii geela dhaqan jiray oo geela jeclaa danba kama laba. culimada qaar ku fasira maye ashaarka waxa loo jeedaa guryaha waaweyn ee la dego oo aad loo qurxiyay. qaar baa ku fasira xataa hadan laga macnaa wixii qiimaha lahaa baa loo jeedaa. hadda halba geel baa la soo qaaday 10 bilood sidee baabuurta quruxda badnayd, diyaaradihii, shirkadihii, guryihii quruxda badnaa waxdan lagama leh. adduunka baabaabi. waydaa waqtiga alcishaaru halihii 10ka siday cudilad la dayaco dan baan laga lahayn, waxba dan lagama leh. waydaa waqtiga alwuxuushu duurjoogta xushirad la shiriyo. duurjoogta xayawaanka duurjoogta ugaartii, dhibaaxii, ruwaagii, shabeelkii duurjoog cidoodna waa dhaan soomaalida qaar cidood. duurjoogtaas la shiriyo oo laba macnaa lagu fasiraa. xayawaankii markay arkeen qoraxdii iyo iftiinkii laga qaday oo baabaday, dayaxii xidigihii soo daatay, buurihii way naxayaan, way soo yaacayaan, dadka u imaanayaan. waxaa isdhex galayeen libaaxii iyo biciidkii iyo shabeelkii iyo ruwaagii, wax alla wixii hataa iscuni jiray baa isku imaanaya, dadka u imaanayaan. wax kala qaloonaya male, cid wax cunaysa ma jirto. sidaa lagu fasiraa. agoo lagu fasiraa xushirad in la soo shiriyo oo maaragtay in la dilo nafta laga qaado, ama qiyaamaha la keeno si loo kala maaragtay lagu kala aargudo. wadaa waqti alwuxuushu duurjoogtii xushirad la soo shiriyo ay soo yaacaan, isdhex galaan, dadkii u yimaadaan. waydaa waqtigii albixaaru badaha sujirad la huriyo. badihii sujirad la huriyo. sidaa lagu fasiraa sujirad in la huriyo, dab isku bedela naar, ama sujirad in la isku furo oo baduhu waa kala xiran yihiin, xuduuday leeyihiin baduhu, in badihii la isku furo iyo muxiidaadkii oo carado dhan biyo noqotaba. waydaa waqtigii albixaaru badaha sujirad la huriyo, sidaa u daa dab laga dhigo. waydaa waqtigii annufuusu nafafta zuwijad la lamaaneeyo, lagu xariiriyo. maxaa looga jeeda zuwijad? waa qaybta dambe 6dan hore waxaan niri kuwa ke wadal bixaaru sujirad. intaas iyadoo la jooga adduunyada bay dhacaysaa bilin culimadu. wayda nufuus zuwijadna laga bilaabana waxay dhacaysaa markay qiyaamu dhaco oo buunka la yeeriyo la soo baxa weeye. waydaa waqtiga annufuusu nafafka dadka macnaha zuwijad la xariiriyo oo la lamaaneeyo. oo yaa la xariirin dhowr macnaa lagu fasiraa. qofkii jirkiisii iyo ruuxiisii baa la kulminayaa, la xariirinaya. maya dadka isku shaqada ahaa, isku camalka ahaa baa la isku darhayaa. dadkii fiicnaa waa la isku xariirinaya, waa wada soconaya. wakuntum aswaajan 3 somaan fi suurat alwaaqic. dadkii xumaana waa la isku xariirinaya oo wixii islahaaba waa la isku darhayaa. ama dadkii fiicnaa malaa'igtina ay israacaan.
dadkii xumaan shayaadiinta la isku daro. waidaa waqtigii annufuusu nafafka zuwijad lala xiriiriyo lala lamaaniyo kuwii ku nuuca ahaa isku camalka ahaayeen kuwii dadka fiicnaana la isku daro dadku xumaana la isku daro. yowmaidin yasduru nnaasu ashtaatan liyuraw acmaala. waidaa waqtigii almaw-uudatu naftii nolosha lagu duugay gabadhii nolosha lagu duugay oo la xabaalay su-ilad la weydiiyo. gabadhi waa su-aal la weydiinayaa nolosha lagu duugay biayi dembin dembigeebaa qutilat lagu dilay oo inantan maxaa lagu aasay. isbedelkii koobkan ka dhacay iyo markii qiyaamo la soo baxay su-aasha koobaad ama su-aalaha ugu horreeya waxaa ka mid noqday gabadhii la aasay ayadoo nool in ayadii su-aal la weydiiyo adiga maxaa lagugu dilay horta maxaa lagugu dilay gabadhan naftan maxaa lagu dilay. su-aashu waxay ku socotaa dadkii gabadha nool aasay laakiin ayadaa la weydiin ayakaan loo jeedaa. maxaa gabdhaha loo aasi jiray xilligii islaamka ka hor gabdhaha waa la bahdeli jiray. gabadha laba sabab baa loo aasi jiray inuu ka baqo odagu faqri walaa taatul awlaadakum khashyata imlaaq. faqri uu ka baqahayaa ma biili kartid marka iska aasi. laba qaab baa loo aasi jiray marka inay gabadha loo kaadiyo markii 7 sano ama 6 sano gaarto oo odagu yiraahdo heblaayo inanta u soo labis saaga waxaan soo booqanaynaa abtiyaale markaasaa loo labisaya. god buu meel dhex ka qoday god baa meel dhex uga qodan naxariis daradiisa suu wadu leey aabba fiiri godkan marka fiirisu ku tuuraya oo leey gal aana ku aasaya iyada ooynaysa laa xawla walaa quwwata illa billah. marna waxay samayn jireen hooyadu in markay dhalayso god ayaa loo qodi jiray hoosteeda god waa la hubin jiray marka hadday ina noqoto ama gabar noqotona godkaa lagu ridi jiray markaasaa lagu aasi jiray. hadduu noqdo wiilna laguma ridi jirin godka markay dhalasaba godkaasaa la iskaga ridi jiray. labada waa la samayn jiray. marka faqri ka biqidna waa loo aasi jiray. waxaa kaloo u aasi jireen gabdhaha ceeb ka biqid ama haddii dagaal dhaco oo laynka adkaado gabdhaha laynka qafaashaa oo qolo kale ay gacantood galaan gabdhuhu oo ceebi kaga timaadaa ayana waa loo aasi jiray gabdhaha. say ahaataba dee dhaqanka dumarka lala dhaqmi jiray dhaqan fiican maahay. gabadha haddii ninka dhinto nin baa maro iskaga tuuranaya ama wiilkii bahda kale ahaa oo bahda kaleo ka weyn ama nin qaraabo la-ah ilaa isfurato lama guursan karo amaba si meher la-aan iskaga guursado. aad baa maaragtay dumarka loo yasi jiray. islaamkaa reebay marka waxaa la mid a marka nolosha gabdhaha lagu duugo gabadhii in laga soo rido iyadoo ku jirta uurka in la soo rido hadda waa jirtaa wadamada qaarna waxbay ka dhigan qaanuun in la soo ridi karo. suuqii gabadhu wareegaysaa joogi mayso wacal bay rimaysaa way garacaysaa hal dhakhtar baa loo geynaya kasoo soo ridaya lacag buu qaadanaya. ayana waa tan oo kale weydal mawudatu su-ilatu. waxaa qeyb ka mid oo soo geli kara asagana dadka la dagaalama taranka dadka taranka la dagaalama ilmaha hala yareeyo maxaa loo yareynayaa bini aadamka afari ka batayo biil looma hayo maadaa biilka bixiya adugu dadka ka shaqeeya weliba muslimiinta dagaalka lagu hayaa taranka hala dhimo. marka qaar waa la qurxiyaa waxaa la yidhaahdaa tandiima nasli taranka hala habeeyo kuleeya. badnaantuna waxa weeyaan waa cizi iyo sharaf iyo awood. alcizatu lilkaathir alcizatu lilkaathir ninka kaa badan waa ka awood badan yahay waa kaa xisaasaar badan yahay soo maa. marka dagaalka hadda ladka waa socdaa. tan kale waxaa ka agdhow asaguna gabdhaha nolosha lagu aaso gabadh in sharafta laga qaado oo talada ay ka tumayso oo la daawanayo yurub iyo meelaha maraykan iyo sida dumarka loo bahdelay makhaayad laga casriyeynayo oo gabar ay saaran tahay miis korkiis ayadoo qaawan niikinayso halkaa lagu shaacabahayo oo kii lacagta u badiyay si fiican ay ugu niikinayso yani waxasmadadnima jirkooda la gadahaya muraayada ku jiraan waa qaawan yihiin hadda mid baa farta ku fiiqanaysaa tanaa rabaa halaysiyo
waxaas ma nolol baa waxaas kaasuu leeyahay xoriyat almar'a lagu leeyahay xorriyadda ish aw xorriyaddu marka waa khatar yani waa qaab ka mid a in la aaso waa aragteen shaambadaa lagu soo musawiraya gabadha saabuuntaa lagu soo musawirayaa barafunka lagu soo musawirayaa soo bini aadam maaha waxaa lagu xayeysinaya alaabtii aw xorriyadda la sheegaya waa been waidaa waqtiga almaw-uudatu islaamku aad buu u sharfay gabdhaha isagaa joojiyey gabdhaha in la aaso in la dulmiyo in xaqooda la qaato inaan dhaxal la siin waidaa waqtiga almaw-uudatu gabadhii nolosha lagu aasay su-ilad la weydiiyo biayi dembin dembigeebaa qutilad lagu dilay maxaa lagu dilay gabadha warku wuxuu ku socdaa nimankii dilay cuquub badan baa ka imaanaya ragga nabigu u yimid sala allahu alayh wasalam gabdhahan aasnay see yeelna wuxuu yidhi dad xoreeya raqabo xoreeya booskii gabadha ad aasteenba qof xoreeya kale maaragta allahu mustacaan jahli waidaa waqtigii assuxufu warqadihii laga qoray dadka suxuftii acmaasha lagu qoray khayr iyo sharba nuushirad la fadiyo oo macnaha fidintu waxa weye lasoo daahiriyo banaanka lasoo dhigo oo sirti ay ka baxdo ama nuushirad la faafiyo qof kastaba gacanta loo geliyo iqra kitaabaka la yidhaah dee qiyaamaha sirtu daahir bay noqonaysaa yowma tubla saraa'ir banaankaa la keenaya wixii kuu qarsoonaa daahir baa laga dhigahaya waidaa waqtiga assuxufu xaashiyihii laga qoray dadka camalkooda lagu qoray nuushirad la fidiyo lasoo daahiriyo banaanka la keeno ama nuushirad qof kastaba loo dhiibo oo la fidiyo oo la qaybiyo qof kasta gacanta loo geliyo waidaa waqtiga assamaau samada kushidad la faydo kashtiga waxaa la yidhaahdaa rida marka haragga laga siibayo ayaa kashtiga la yidhahda asalka luqada samadu waa dadan tahay dadkan waaba la faydayba yowma nadwi samaa ka dayi sijili lilkutub waaba la dudubaya eber saanqaaf bay noo ahayd soo maaha samadiiba haddii la diiro ayadoo dhanba waidaa waqtigii aljaxiimu naarta jaxiima sucirat la huriyo naarta jaxiim la hurinayaa si dadkii rabbi caasiyey ee gaaloobay ay u gubto waidaa waqtigii aljannatu jannada uslifad la soo dhoweeyo oo dadka mutaqiinta loo soo dhoweeyo tan soo marno naartana waa la keenayaa iyadoo silsila lagu hayo ayaa la keenay qiyaamaha jannadana waa la soo dhoweynaya waxaan soo marna burizat iljaxiimu liman yaraa uslifat iljannatu lilmuttaqiina gayra baciid waidaa waqtigii aljannatu jannada uslifad la soo dhoweeyo inta aan soo sheegnay 12 aayadood 12 hadday dhacaan jawaabtu maxay noqonaysaa shardi waa shardi idaa calimat waad jawaabti calimat nafsun nafi waxay ogaanaysaa maa axdarad waxay goobta keensatay soo xaadirsatay maanta waa noolnahay qof kasta waa shaqaynayaa waxbuu samaynayaa waa hadlahayaa waa dhegaysanahayaa camal unbuu samayn camalkaas mid waa khayr mid waa shar laakiin xaqiiqo ma hayo camal wanaagsan baa samaysa ma lagaa aqbalay xumaan baa ka toobad keentay ma lagaa aqbalay war uma hayo laakiin xagga waxaa imaan doona qiyaamaha dhabti adiga waa imaanaysaa oo shaqsiyan waa xaadir baa tahay diiwaanadii lagaa qorana waa xaadiro waaba la keenay gacantana waa lagaa gelin iqra kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba kitaabka akhriso asaa kugu filan xisaab akhriso akhrisanaysaa marka fa wuxuu ka helo marka waa nihaayadii soo ma jeedid calimat nafsu ma axdarat waxaa lagu leeyahy marka war maalintaasaa imaanaysa koonkaani waa nihaayuu leeyahay samada iyo qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo buuraha iyo dhulka iyo dadka waxoo dhan waqti bay leeyihin hadday dhammaato oo halkaa la tagay xisaab baa jirta maxaa ugu tala gashay diyaar garow bay kaaga baahanta diyaar garow bay kaaga baahanta haddaad tiraa wiilkaaga idaa najaxta fi limtixaani ukrimuka haddaa maandhow ku najaxday imtixaanka waa ku karaamayn
abaalgud baan la siin cunugaas soo dadaali maayo uu dadaalin shardiga inuu najxo shardi ku xiran waa maxay jawaabtu waa maxay haddaa najaxday oo shardi ah waa ku karaamaynaya karaam ku dadaalaya qiyaamaha intaasaa dhacaysa calimat nafsu maa xadarat calimat nafsu naf waxay ogaanaysaa maa xadarad waxay goobta keensatay ogaanaysa marka ku talagal bay u baahantay allah noo fududeeyo taa waa qaybta hore qiyaamada waa xaqiiqo dhacaysa oo jirta waay qofkii ismoodsiiye asagaa arki doona hadhow waa qaylin doona markuu arko waa qaybta ka hadlaysa qiyaamada sababta ma dhici karto adduunyada aan joogno hadda inta daalim wax dulminaysa ee dadka dilaysa ee dadka dhacaysa xoolahooda qaadanaysa iyo ninaan waxba dhibinba dad aan dilin dad dhicin in la yidhaahdo saasay adduunyada ku dhammaanaysaayo cadaalad ma jirto xisaab sax maaha cayaar maa loo abuuray adduunyada ninka fiicana waa inuu amaalkiisa helaa qofka xunna waa inuu amaalkiisa helaa marka maalinta ku talagal bay u baahantay qaybta ku xigta waxyigaa laga hadlaya haddana suuradaha makiga caqiidadii ka hadlaan inta badan iyo akhlaaqda iyo falaa uqsimu waxaan ku dhaaran dhaar bay ku bilaabanaysa bilkhunnasi xidigaha qarsooma maalintii habeenkiina soo baxa falaa uqsimu laadaas culimmada waxay yidhahdaan waa tawkiid dhaartay adkaynaysaa dhaarta iyo nafyi maaha ama in la yidhaahdo laa uqsimu kuwa dhaaran mahayay shay lagu dhaarto waaba ka wenyahay waa ka wen yihiin saasoo kalena laakiin aan tawkiid ka dhigno falaa uqsimu waxaan ku dhaaranhayaa bilkhunnasi xidigaha qarsooma maalintii qarsooma hamiinkiina soo baxa aljawaari socda khunnas waa xidigihii aljawaari socda xidiguhu waa socdaan meerayaasha kawaakib sayaara way socdaan alkunnasi ku qarsooma meeshii ilaahay ugu talagalay kunnaska waxaa la yihahdaa kunnasada waxaa la yihahdaa ugaartu hamiinkii say maalintii u qaraabanayso maalintii waxay u jeedaan waa iska ilaalinayaan mogta qofka ugaarsanaya meel oo xoogaa yaro dugsoono ood laho bay galaan xerada ay galaan baa kunnaasa la yihahda hadda waxaa loo jeedaa xidigaana wuu socdaa su u socdo meel buu ku qarsoomaa soo maa ma mar xidig waa soo baxaa waa xidigahan waa soo baxeen xilligaana soo baxeen lixaha maalan ururta toddobaadyada kuwa la yihahdo soomaalida ay yihaahdaan iyo kuwa kale xidigu maruu soo baxaa wuu socdaa wuu qarsoomaa marka jawaari waa socodka wuu soconaya dee ciddii ku takhasustaa aad u garanaysa xidigiisa anuu maqa xidigahade yaa takhasus bay leeyihin waa la bartaa oo cilmi la bartoo jiro waay xidigu su u socdo marka wuu qarsoomi alla wuxuu ku dhaaranaya marka xidigaha maalintii qarsooma socodkana ku jira waxau leeyahy waa malaayiin xidiguhu qaar baa dhulkan ka weyn marka lagu eego telescob qalab lagu eego weyneeya farahaasay ka bateen mana isku dhacayaan mid kastaba wadu haysta ilaahay ugu talagalay subxaana watacala hadday isku dhici lahayaanba waxa adduunku waaba guban lahaaba waa weyninkooda hadday isku dhacaan qarax ka dhasha mid kasta wadu haysta ilaahay ugu talagalay halkaasu ku socdaa marka socodkana aljawaari socda alkunnasi ku qarsooma meeshuu lagu talagalay kunnaska meesha ilahay ugu talagalay ku qarsoomaya waleyli hamiinkan ku dhaartay idaa cascasa hadduu hamiinku dhammaado oo tago marka lagu fasiraa waleyli idaa cascasa hadduu yimaado hamiinku oo bilow ku jiro ereyga cascasa laba macnay leedahay aqbala wa adbara waa yimid iyo waa dhammaada labadaba waa lafdi oo labada ereyba lafdi mushtaraga waay labada macnaba waa leeyahay laakiin keebaa ku habboon mufasiriintu waa isu khilaafeen keebaa ku habboon qole waxay yidhahdeen mufasiriinta waxaa ku habboon in lagu fasiro waleyli hamiinkii baan ku dhaartay idaa cascasa hadduu tago hamiinku dhammaado waxay yidhahdeen waxaan u daliilsanay wasubxi subxii baan ku dhaartay idaa tanafasa hadduu neefsado waagu uu baryo maadaama waabar la sheegay waxaa ku xigay hamiinku inuu tago qolen waxay yidhahdeen maya waxaa munaasaba in la yidhaahdaba haddii waabar la sheegay oo iftiin la sheegay in hamiinku uu yimaado mugdi ay noqoto labada lagu fasira aaya kowniya waay hadduu yimaadana waa aaya kowniya oo yaa badan adduunka oo dhan mugdi buu noqonaya hadduu dhammaadana adduunkaa fayd mahaya iftiin bay noqonaysaa subax baa imaanaya
waleyli baan ku dhaartay hamiinka idaa cascas hadduu tago hamiinka oo daba jeediyo ama idaa cascas hadduu yimaado wasubx baan ku dhaartay idaa tanafasa hadduu neefsado wasubx idaa tanafasa dadka luqada carabiga yaqaana aad bay ugu bogaan tacbiirka waxaa laga dhigay subxii qof bini aadama oo cabursanaa oo neefsada koonkii waxaa laga dhigay koonku hamiinka mugdi buu ahaa qam buu ahaa wax cabursan oo kale oo neefti ku ceshoon tahay oo waagi uu beriyo neefsaday baa laga soo qaaday waa tacbiir aad u cajiib badan marka qolada culummada luqada carabiga dee aad u dhadhamiya ay fasirahayaan cajaa'ib wey subax hadduu neefsado macnaa waa iftiinka hadduu yimaado mugdigii baa cabur laga soo qaaday lagu jiray iftiinkiina neefsi baa laga soo qaaday iyo qofka neefti ka soo baxday maarata waaba aragteenoo sida loogu jiro adduunku qamiyo guryaha loogu jiro bal waxay bannaanka u baxdaan 10 saaco hamiinnimo ama 11ka xilliga dambe waag subax waa bar ka hor bannaanka u baxa bal wax socda mala qam in qiyaamo dhacdo malayn waag ma bariyay faala soo yaacin intaasoo dheera jawaabti marka jawaab alqasam muxuu yahay marka innahu quraanka looga jeeda innahu qur'aanku laqowlu rasuulin rasuul warkii weeye rasuulkaoo kariimin wanaagsan culamada qaar waxay yidhahdaan dhaarta shayga lagu dhaartay iyo jawaab qasamka marka qaar waxaa ka dhexeeya calaaqa ka dhaxaysa xidigaha iftiin kale hamiinka iyo waabarka waxay ku matalaan qur-aanka iftiinkiisa mugdi waxay ku matalaan jahliga iyo dulumaadka iyo wax noocaasa jawaabtii maxay noqotay innahu qur'aanku laqowlu rasuulin rasuul warkii wey kariim wanaagsan rasuulka jibriil baa loo jeedaa rasuul alla soo diray oo waxyiga loo soo dhiibay qur-aanka asagaa keenay innahu qur'aanku laqowlu rasuulin rasuul oraahdii wey kariim wanaagsan oraada asaga ma dhihin waa loo soo dhiibay waa tabliiq gaarsiintii waa rasuulka laga sheekay waa rasuul wanaagsan waa kariim dii quwatin xoog leh xoog buu leeyahay jibriil hadda 600 oo garab buu leeyahay nabigu markuu arkay sal alla alay wasalam isagoo samadan kursi ku fadhiya nabigu waa naxay gurigu ku laabtay yaa laydada waa ka naxay nabigu sal allahu alay wasalam araggiisa looma adkaysan karo dii quwatin xoog u saaxiibo xoog leh cinda dil carshi carshiga allaha le agtiisa makiinin sharaf leh ama aan dhahno cinda dil carshi carshiga allaha leh agtiisa halkaasuu joogay rabbuu ka agdhow yahay macnaha muqarab ilayhi makiinin darajo sare ayuu leeyahay alla agti ama waxaa la odhan karaa cinda dil carshi carshiga allaha le agtiisa makiinin daa makaanatin darajo saruu haysta alla agtiisa darajo sare ayuu ka leeyahay waa makaanada wey mudaacin mid warkiisa la maqlo weeye thama meeshaa sare samaawaadka malaa'igtu warkiisa waa maqlaan jibriil calayhi salaam mudaacin mid warkiisa la maqlo weeye oo la adeeco thama halkaa sare oo samada warkiisa waa la maqlaa amiinin waa mid la aaminay oo loo aaminay waxyiga jibriil amiin waxaa loo aaminay waxyiga ilaahay inuu safiir noqdo u dhaxeeya rabbi subxaanahu wa tacaala iyo rasuulka maxameda sala allahu calayh wasalam waa loo aaminay waa rasuul wanaagsan awooduu leeyahay shay-adan uma soo dhowaan karto allaagtiisa sharaf buu ka leeyahay warkiisa malaa'igtu madaxweyho malaa'igtaa warkiisa maqasha amiinin waa la aaminay intaa waa tilmaanta jibriil calayhi salaam oo waxyiga soo qaaday rabbi ka soo qaaday rasuulka u keenay sala allahu calayh wasalam nebiga hal tilmaan laga soo qaaday oo laga anfinahayo sifada xuna ay gaaladu ku sheegeen wamaa saaxibukum saaxibkiin moxamed sala allahu calayh wasalam bimajnuunin mid waalan maaha moxamed sala allahu calayh wasalam adinkan reer makaa oo quraysha waxaa ka markhaati tiri inaad u bixiseen moxamedul amiin maalintaas ku muranteen kacbada haddaad dhisteen
xajur aswadka yaa meeshiisii saara qabiil kastaba asagu damcay ee dagaalku dhici tegey waxaad tirahdeen ninka ugu horeeya ee noo soo gala ee iriddaa ka soo gala ayaa xakam ka dhiganaynaa asagaa inii soo galay waxaad tirahdeen waa maxamedul amiin mushkiladii iminka xaliya go' buu fidiyey wixii go' ku rida dhagaxa qabiil kasta kaaba qabiilada aawe dhinaca ha qabteen sida sharafta ay qolo kasta sharafta ay meel ay u sheegato maxamedul amiin wadaacadahay u dhiiban jireen ammaanooyinka loo dhiiban jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ay ku aamini jireen markuu haajira nabigu sala allahu calayh wasalam cali buu ka tago wuxuu yidhi alaabti ammaanaadki aan hayay aduu gud waa nin la dilhayo o la raadsanayo ammaanadoodii buu leeyahy hala siiyo waxoodi dimanka wamaa saaxibukum saaxibkiin nebi maxamed sal lla alay slam saaxibku waa ninka nin aad taqaaniin oo in la noolaa markuu dhashay markuu dhallinyarada ahaa markuu soo kor aad taqaaniin abu sufyaan markii uu ganacsiga u joogay shaam oo boqorkii hiraaqla warqaddii neb u tagtay sala allahu calayh wasalam buu yihi meelaha ma joogaa nina qaraaba yihiin haa abu sufyaan oo marka aan muslim ahayn oo dagaal ba asaga nebi ka dhexeeyo baa la yidhi haa abu sufyaan buu u yeeray wuxuu ninkan been marna been maku tuhunteen mayuu yidhi ninka intuusan nebinimada sheegeen been u sheegi jira maya been ma aqoon buu yidhi ninkaan been ma aqoonin anugu waa fahmi karaa buu yidhi hiraqle ninaan dadka been u sheegin ilaahay beenka ma sheegi karo ninaan dadka been sheekada caadigaa ma yaqaana inuu yidhaha ilaahba ay soo diray oo beena ma dhici karto waa runlow wamaa saaxibukum saaxiibkiin bimajnuunin mid waalan maaha qof waalan maa wax isku aadan sheega laakiin dadku markay caqliga ka tago dadka fiican waa iska caayaan yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun bay dheheen walaqad waxaa dhaba wallaahi walaqad laamtu waa dhaare walaqad wallaahi waxaa dhaba ra'aa waa arkay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama hu jibriil bilufuqi jahada dhinaca almubiina cad dhinacaan bariga qoraxda ka soo baxdo ayuu asagoo suuradiisii 600 garab baa nebigu arkay sala allahu calayhi wasalam walaqad waxaa dhaba ra'aa inuu arkay nebigu sala allahu calayhi wasalama hu jibriil bilufuqi jahada almubiina cad wamaa huwa nebi moxamed ma ahan sala allahu calayhi wasalam cala alghaybi qeybka waxya ku soo degay qur-aanka loo keenay xag alla uga yimid bidaniinin mid kuma suuga maaha marka daad la akhriyo riwaayat xabsa can caasim daadka waxaa weeye kuma bakhiilo bimacnaa waxyigii loo soo dhigay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama wax la hari maayo maayee wuu inii sheegi dhammaantii qiraada kale waxaa weeyaan maa huwa cala kaybi bidaniin da in la akhriyo bidaniin wax mutaham nin lagu tuhmo waxyiga maaha inuu wax ku daro inuu been sheego maaha nebi moxamed sala allahu calayh wasalam tan baan u dayno oo riwaayat xabsa can caasim wamaa huwa nebi moxamed maaha sala allahu calayh wasalama cala kaybi qeybka qur-aanka loo soo dhiibay xag alle looga soo dhiibay bidaniini mid lagu tuhmo maaha mid ku bakiila maahan daniinku waa daadku waa bakiil mid ku bakiilo ku masuuga oo qeyb qarsada qeybna inii sheega maahane kulli waa inii sheegaya nebigu sala allahu calayh wasalam wamaa huwa qur-aanku maaha biqowli shaydaanin shaydaan warkii rajiimin la dheereeyo naxariis alle laga dheereeyo oo la cayriyey warkii maaha qur-aanku war shaydaan maaha ee waa kalaamu rabbi alcaalamiin jibriil baa loo soo dhiibay nebi moxamed sala allahu calayh wasalama ayuu u keenay nebiguna waa ini soo gaarsiiyey ee war shaydaan maaha wamaa huwa qur-aanku maaha biqowli shaydaani shaydaan warkii shaydaanku rajiimin la dheereeyey la arjumay naxariista rabbi laga dheereeyey oo la cayriyey maaha intaas markii nebi moxamed sal allahu alay wasalam nebi moxamed sal ly slam la tilmaamay jibriil la tilmaamay qur-aankii wuxuu yahay la sheegay alla wuxuu yidhi fa ayna xaggeebaa dadow tadhabuuna aada u tegaysaan xaggaad aadaysaan xaggaad qur-aanka ka aadaysaan oo u socotaan haddaad qur-aanka diidaan oo rumayn weydaan oo qur-aanka qaadan weydaan maxaad qaadanaysaan xaggee u socotaan fa ayna tadhabuun xaggaad aadaysaan xaggaad qur-aanka aadaysaan xaggaad u socotaan maad waalantihiin xaggee u socotaan fa ayna xaggeebaad tadhabuuna aada u tegaysaanoo
aad qur-aanka uga tegaysaanoo aada u rumayn la-dihiinoo ugu dhaqmi la-dihin in huwa maa huwa qur-aanku ma ahan ilaa dikrun waanay caqil celis maahan wax kale maahan lilcaalamiina uunka noolaha oo dhan. qur-aanku muxuu yahay? dikrun lilcaalamiin. koonkan wixii ku nool buu u yahay caqli celin iyo xusuusin la xusuusinayo rabbi subxaanahu wa tacaala iyo rasuulka iyo risaaladiisa iyo aakhirada qiyaama iyo wixii u dana. in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin. rasuulku sal allahu alay wasalam maanta ma joogo, muslimiinta maanta nool, bini aadamku waa wareersan yahay, aada buu u wareeray. dad cidda la raba inay gaarhsiiso waa annaga iyo inteenaan iyo in kale. cidda la raba inay caalamka gaarhsiiso maanta aad buu caalamka wuxuu ugu baahan yahay in la badbaadiyo oo lagu badbaadiyo qur-aanka oo rabbi lagu xiro oo adduunyada waashay laga soo celiyo. laakiin yaa laga rabaa risaalatu lmu'miniin way risaalatu lmuslimiin. intiinaan iyo inteenaan iyo inta kaleo muslimiinta la rabaa inay caalamka risaalada gaarsiiyaan oo iftiinkaa gaarsiiyaan ee aan lala fadhin. in huwa maa huwa qur-aanku ma ahan ilaa dikrun waana maahan wax kale maahan lilcaalamiina uunka noolaha caalamka o dhan. liman qof buu u yahay waano shaa'a doona oo minkum in ka mida an yastaqiima inuu toosnaado. qofkii bini aadamkiina ka mida noolaha ka mida ee raba inuu tooso qur-aanku toosin buu yahay waanu u yahay qofkii rabaa. qofkaan rabina dama toosaayo khiyaar baa leedi. faman shaaa falyuumin waman shaaa falyakfur. liman qof buu waana u yahay qur-aanku shaa'a doona oo minkum in ka mida an yastaqiima inuu toosnaado oo dariiqa xaqaa ku toosnaado oo rabbi rumeeye raaco rasuulku rumeeye raaco sala allahu calayhi wasalam. wamaa tashaa'uuna dooni maysaan ilaa an yashaaa allaahu inuu alla doono mooye rabbulcaalamiina noolaha ama caalamka rabbigii asagu abuuray ee barbaariya ee maamulo ah. mashii'adin waxay ku xidhan tahay mashii'ada rabbi subxaanahu wa tacaala. haddaan rabbi inuusa ini kaalmayn oo ini garab gelin oo ini toosi maysaan. maxaa la rabaa qofka marka inuu rabbi ka baryo mar kastaba oo rabbi ku xirnaado inuu toosiyo. 5 waqti waxaan ku tukanaa faatixada ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin. ilaahay waxaan kaa barinay hanuun baan kaa barinay ihdina allow nagu toosi asiraada wadada almustaqiima toosa waa qur-aanka wadadiisi raacidda nebiga sala allahu calayhi wasalam. haddaan rabbi ku toosin marka ma toosi kartid. sababtu waa maxay? tabar ma haysid. khulqal insaanu daciifan. shaydaankii qarsoono jinnigaa iyo shayaadiinta insigaa kaa adag. naftaada shahway leedahay, shahwadaad iska raacaysaa. haddaan rabbi ku kaalmayn ma toosi kartid. marka toosin inaad toostid waxay ku xiran tahay in rabbi ku garab galo subxaanahu wa tacaala oo ku garab siiyo. wamaa tashaa'uuna dooni maysaan ilaa an yashaaa allahu alla inuu doono mooyaane rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigoodii ahaa. koonka oo dhan waxaa ka dhacaya wuxuu ku xidhan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala maamulkiisa. waxaan rabbi ogeyn kama dhacaan, wuxuusa doonina ma dhacaan rabbi subxaanahu wa tacaala. haddii khiyaar baa leedahay waa dadaalaysaa. rabbina kaasho subxaanahu wa tacaala. rabbina kaasho oo inuu ku garab galo. hadduu rabbi ku garab galo waa toosaysaa. haddii kale aan rabbi ku garab gelina waad lumaysaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. sala allahu calaa nabiyina.